Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Subax wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaalka gobolka Bariga Dhexe gaar ahaan dagaalka u dhaxeeya Israa'iil iyo Iiraan oo cagaha la sii galaya maalinkii saddexaad si toos ah hadda u muuqda in ay dhinacyadu aadeen in xoogga lagu kala baxo iyadoo Iiraan ay qaaday aroornimadii hore ee saaka mid ka mid ah weeraradii ugu xoogganaa oo gebi ahaanba saameyn ku yeeshay socodka guud ee dhulka Israa'iil haysato burburkii ugu ballaarnaa iyo khasaarihii ugu weynaa oo dhaawac iyo dhimasho u geystay dhinaca Israa'iil. Tabinta waxaan ku eegaynaa wararkii ugu dambeeyay ee u dhaxeeyay labadii tabinood ee aanu sameynay saqdi dhexe ee xalayto iyo ilaa iyo waqtigan weeraradii kala duwanaa ee ay qaaday Iiraan waxyeelada ka dhalatay iyo sidoo kale bartilmaameedyada Israa'iil ay xalayta garaacday ee ku yaala gudaha dalkaasi Iiraan gaar ahaan magaalada madaxda dalkaasi Tehran. lana mahadiyay intii aynu ogeyn fiidnimadii horeyto ee xalayto Israa'iil ayaa si ballaarisay weerarada ay ku qaaday gudaha dalkaasi Iiraan goobaha la beegsadana waxaa ka mid ah kaydadka shidaalka warshadaha wax soo saarka kaabayaasha dhaqaalaha iyo waliba sidoo kale gaagabyada ama bartilmaameedyada muhiimka ah ee ku yaala gudaha dalkaasi. weerarka ugu ballaaran waxa Iiraan ku qaaday sidoo kale iyana magaalooyinka waaweyn ee ay gacanta ku hayso dhulka ay haysato Israa'iil gaar ahaan Haifa oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dhulka Israa'iil haysato ee ku yaalaan kaabayaasha dhaqaalaha warshadaha wax soo saarka iyo waliba kuwa saliidda sifeeya. Iiraan waxa ay kale oo bartilmaameysatay guryo waaweyn oo ah kuwa muhiim ah marka laga hadlayo magaalada Tel Aviv waana habeenkii labaad oo si toos ah ay u garaacday inkasta oo weerarka Haifa iyo Tel Aviv ay saacado u dhaxeeyeen oo kan Tel Aviv waa berigii hore ee saaka ahaa waxaa la xaqiijinayaa kaligiis inay ku dhaawacmeen in ka badan 300 oo qof iyadoo ilaa hadda ay socoto samata bixinta dhismayaasha burburay oo lagu leeyahay dad kor u dhaafaya 30 qof oo Israa'iiliyiin waxaana ay sheegaysaa Tel Aviv in khasaaraha dhimashadu ay yar tahay inkastoo aysan jirin faahfaahin madax bannaan oo dheeraad oo muujin karta ilaa iyo hadda waxa gaaray dhinaca Israa'iil. warbaahinta gudaha ee Israa'iil ayaa inta badan mid xadidan sidoo kale muuqaalada kala duwan ee kaamirooyinka jidadka ku xiran ayaa muujinaya burbur baaxad leh iyo waliba sidoo kale waxaan hore Israa'iil u suuraysan oo ay Iiraan qaaday aroornimadii hore ee saaka. kooxaha gurmadka degdega ah ee Israa'iil ayaa sheegaya in dhismayaasha burburay ee ku yaalay bartamaha Tel Aviv gantaalada lagu qarxiyay ay wateen agabyo qarxa oo gaaraya ilaa 2 tan oo ah waxbaha qarxa taas oo ka dhigan in ay wax kasta ka culus yihiin sidii ay bilowgii ahaayeen. Iiraanna waxay sheegtay in waxa soo socdaayba ay aad uga yar yihiin waxa hadda ay geysatay marka loo fiiriyo ilaa hadda weerarka ay qaaday. waxa kale oo ay muuqanaya in Tel Aviv ay saaka u tahay subax kale oo aan u wanaagsanayn subaxnimadan hadda ah iyadoo oo la daad gureynayo dad kala duwan oo dhismayaasha laga baadi goobayo si lamid ah sidii ay Gaza u weerartay una burburisay Israa'iil ayay Iiraan saaka ayana mar kale u burburisay goobo muhiim ah oo ku yaala magaalada Tel Aviv iyo kasta oo ay u arkaysay dhinaca Iiraan inay tahay bartilmaameed sugan. magaalada Haifana saqdi dhexe ee xalayta duqeymihii ugu dambeeyay ee ay Iiraan ku qaaday waxa lagu bartilmaameedsaday warshad saliidda sifaysa dekada magaalada Haifa iyo goobo bartilmaameedya oo ay Iiraan sheegtay inay hayeen saldhigyo military oo ay Israa'iil ka qaadaysa weerarada ay ku qaado dhulka kala duwan ee islaamka gaar ahaan goobo ay ka mid yihiin Falastiin iyo waliba sidoo kale Iiraan iyo Yemen. waxa la xaqiijiyay in ay ku geeriyoodeen ilaa iyo hadda weeraradii Haifa Tamra iyo goobo kala duwan ka dhacay in ka badan 7 qof inkastoo ay Israa'iil 5 qof sheeganayso haddana taas wax ka duwan ayaa waqtigan soo baxaysa. marka laga hadlayo weerarada si xoogaysanaya ee ay Iiraan qaadayso waxay u muuqanayaan inay yihiin kuwa ay kaga jawaabayso bartilmaameedyada ay sheegayso dhinaca Israa'iil inay ka geysanayso gudaha dalkaasi Iiraan. telefishinka marka laga hadlayo taageerada Mareykanka ee dhinaca Israa'iil ayaa u muuqatay inay hadda soo degdegayso kulan saacado dheer qaatay oo ka dhacay aqalka cad ee dalka Mareykanka oo aanu xalayta sii sheegnay in maalintiisa oo dhan Trump uu ku qaadan doono Sabtidii iyo saqdi dhexe ee xaddi xalay aqalka cad si loo maareeyo xaaladda gobolka Bariga Dhexe. waxay xoguhu sheegayaan in si weyn la isugu khilaafay in Mareykanku si toos ah cagaha ula galo colaadda ka socota dalkaasi Iiraan oo dhaxaysa Israa'iil iyo waliba sidoo kale dhinaca Iiraan iyo in uu banaanka ka joogo oo ku koobnaado musaacado military oo tiro aan lahayn oo siiyo dhinaca iyo Tel Aviv.
warbaahinta gudaha ee Mareykanka gaar ahaan telefishinka dalkaasi laga leeyahay ee CNN-ka ayaa sheegay in saraakiisha Israel howlgallada military ee Israel ka dhanka dhinaca iyo waliba Iran inay sii socon doonaan toddobaadyo taas oo ka dhigan in Mareykanku uu si toos ah qayb uga noqonayo aqalka cad iyo Pentagonku isku khilaafsan yihiin ilaa hadda sida loo taageeray ama qaybta looga noqon karo dagaalka ay Iran ku qaaday aan iraahday Israel ay ku qaaday gudaha dalkaasi Iran waxay saraakiisha qaybtood aad u doonayaan in ciidanka Mareykanku ay door lixaad ka qaataan oo la geeyo diyaaradaha duqeymaha xooggan fulin kara xilli ay dhinaca Israel si toos ah u dalbanayso inay u baahan tahay gargaar degdeg ah iyo ka qaybgalka Mareykanka ee dagaalka maadaama ay sheegtay in diyaaradaheedu aysan ku filnayn inay naafeeyaan oo burburiyaan kaydadka hubka gantaalaha in ka badan 20,000 ah oo ay haysato dhinaca Iran oo ah kuwa khatar weyn ku ah dhinaca Israel marka laga hadlayo waxa yaala gudaha dalkaasi Iran Mareykanku waxa uu hadda sheegay in saraakiishiisu inay la socdaan oo ay og yihiin dhammaan tabta dagaal iyo xeelada ay dejisay dhinaca Tel Aviv ee ka dhanka Tehran waxaana sheegayaan inay bixin doonaan gargaarka military ee loo baahan yahay laakiin Benjamin Netanyahu kuma qanacsana gargaar military waxa uu doonayaa in ciidanka Mareykanka loo daabulo gobolka Bariga Dhexe Axios waxay arurnimadan hore ee saaka oo xada sheegaysa in gabi ahaanba Mareykanku uu sanadiisii taalay dhinaca Ukraine oo ay ka mid yihiin gantaalaha difaaca nidaam diyaaradaha drone-ta iyo waliba sidoo kale hubka culus ay u daabulayaan oo dhinaca iyo waliba gobolka Bariga Dhexe gaar ahaan Iran oo laga qaadayo Ukraine iyadoo oo lagu bartilmaameedsanayo Tehran waxaana uu doonayaa inuu ku difaaco dhinaca Israel oo uu Mareykanku si xoogan hadda dalkiisa oo dhan isugu geenayo sidii loo xaqiijin lahaa hadafkeeda in meel mar laga dhigo in la soo afjaro hubka nuclearka ee dalkaasi Iran marka laga tago weerarada ay Mareykanka iyo ka qaybgalkiisa dagaalkan haddana dhinaca kale waxa socota in Iran ay sheegayso in si weyn isugu diyaarisay hadda sida ay uga jawaabi lahayd waxa ay ku yeertay gardarrada xoog leh ee uga imaanaysa dhinaca Benjamin Netanyahu Generalka 12aad ee Israel ayaa sheegaya in tirada ay dhaawacayaan weerarada kala duwan ee ka imaanaya dhankaas iyo waliba sidoo kale Iran ee bartamaha Israel ay kor u dhaaftay oo kaliya ilaa hadda 210 qof waana arurnimadan hore inta ay geysatay weerarada bartamaha lagu qaaday iyadoo ay ka sii badan yihiin kuwa kale ee xalay dhacay waxaana qiyaas ahaanta ilaa hadda la diwaan galiyay ee Israel ay qirsan tahay waa in ka badan 400 oo qof oo dhaawac ah oo isbitaalada la geeyay saacadihii ugu dambeeyay ee weerarada ay dhaceen macnaheedna waxay tahay in ay Tehran waxba aysan hambaysanaynin oo ay qaaday weeraradii ugu waaweynaa dhinaca Tehran wararka iyadoo ay sheeganayso hadii aynu eegnana waxay tabisay inay ka hortagtay duulaano qorshaysnaa oo bartilmaameedyo lahaa oo lagu qaaday caasimadda dalkaasi Iran ee Tehran gaar ahaan goobo ay ka mid yihiin kaydasha shidaalka wasaaradda difaaca iyo xarumaha kala duwan oo ay sheegtay inay yihiin bartilmaameedyo dadweynuhu ay deganaayeen dad isku soo baxay ayaa gudaha magaalada Tehran laga arkay subaxnimadan hore ee hadda kuwaas oo muujinaya sida ay u garab taagan yihiin nidaamka maamul ee dalkooda oo ayna diyaar ugu yihiin inay qayb ka noqdaan gabi ahaanba in la soo afjaro weerar kasta oo ka imaanaya dhinaca iyo waliba sidoo kale Israel waxaana muuqata in ay taliska ciidanka ilaalada kacaanka ee dalkaasi ay si cad u sheegayaan hadda in ay qaadayaan weerar ka culus kuwii hore loo qaaday sida muuqata weerarada ay geysanayso Iran waxay xalay u adeegsatay gantaalaha cruise-ka loo yaqaano oo ah cir ilaa dhul taas oo macna ahaan ka dhigan in ama dhul oo macnaheedu yahay in ay Iran hadda awoodeeda military oo dhan ay la soo baxday oo ay doonayso in ay ka dhawayso hanjabaadaheedii maalmihii la soo dhaafay ay sheegaysay Iran ciidankeedu waxay sheegayaan in ay soo rideen ilaa iyo hadda 3 diyaaradood oo ah kuwa loo yaqaan F-35 ee Mareykanku leeyahay ee casriga laakiin weli lama hayo xog faahfaahsan oo dhammaystiran telefishinka laga leeyahay dalkaas Iran Elia Press TV ayaa sheegay 48 saac la soo dhaafay ay noqonayso markii ugu horeysay ee jeelka shanaad diyaaradaha loo yaqaan ee Mareykanka dhulka la soo dhigo inkastoo aysan si toos ah u soo sheegin una shaacinin dhinaca Tehran haddana waxa aan shaki lahayn in ay ogtahay Iran xaqada la xiriirta diyaaradahan oo inkastoo ay beenin u sheegtay haddana
uma muuqato taasi inay noqonayso mid kama dambaysa dhinaca Yemen haddii aynu eegnana waa iyadii xalay saqdi dhexe ay diyaaradaha Israa'iil sheegeen in duqeyn bartilmaameed ah oo saxa ka fuliyeen gudaha magaalada Sanca gaar ahaan agagaarka isbitaalka oo ay sheegeen in uu ka socday guri shir ay lahaayeen madaxda ugu sareysa kooxda Xuutiga ama Ansaarullaahi Sunna kooxda Xuutiyiintu waxa iyana goordhow oo salaadii subax kadib ay ku dhawaaqeen in ay weeraradooda kordhinayaan ay ka geysanayaan dhulka Israa'iil haysato waxna ay sheegeen in bartilmaameedyadu ay noqon doonaan kuwa intii hore ka badan oo Israa'iil jawaab adag laga siin doono gardarada iyo weerarada ay ku hayso dhinacyada Gaza iyo waliba soo kale dhulka Iran dagaalku hadda wuxuu muuqdaa mid afkiisa uu madaxa kala baxay wax kasta oo hore loo suureynayay maanta oo hadana waxa la filayay inuu Iran xiisadu ay hoos u dhici karto oo dadaalka diblomaasiyaddu uu guuleysan karo laakiin taas haba sheegino tan xaaladu gun iyo caar ay bixisay wararkeena dambe ayaan ku eegi doonaa bal marba waxa soo kordhay iyo waliba sidoo kale Israa'iil la kulmaysa jabkii ugu weynaa oo aysan hore u suuraysan xilli ayana ay sidoo kale hayso weeraradii ugu balaarnaa oo ka dhana jamhuuriyadda Iran